السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غيرت الشرفت لأد بان إذا السلام يا عشر كان آيان مانت اسكو إيماني دو الله يدمو بدنا كفايد دونتان انت أنا عشر كوجلين أما عاد داوشد عشر كانوا جلين شن سؤال لجاربا شن السؤال هداد سفي عنه هيسو عشرة وتسيد أو كرتا أد أيان أفهم كرتا شن سؤال وحيين وما كسب سين عشرة وراء السوق قادتين أسد مش وكبت أو مكيراده liabilities oo deymaha meesha ay ka yaraadaan ama ay ka bataan capitalka meesha uu ka bato ama ka yaraado revenue oo faa'iidada meesha uu ka bato ama ka yaraado iyo expensive meesha uu ka bato ama uu ka yaraado shantaas shay aad kala fahansan tahay casharkan maanta aan qaadanayno aad iyo aad ayaad ula soo doontaa hadii waa leedmo hadii aadan fahansanayna kaliya isu update gareey wax yar oo cashareeda horay aan u qaadanay soo muraajacay بسم الله مركا عم بلاونو waxay noo mareysay the rules of double entry wax la yiraahdo bookkeeping sharcigan double entry la yiraahdo waa iska kooban yahay waxa la yiraahdaa account walba ama transaction walba dhaca waa inuu laba saameyn waa inuu yeeshaa waa dhacdo walba bis kamid laba saameyn waa inuu yeelato marka double entry sharcigaas ugu weyn laakiin si kooban fiir laba sharci ku qoran waxa lagu yiri every transaction affects at least two accounts transaction waa dhacdo walba accountigu uu sameeyo ama dhacda waa inay saameysaa ugu yaraan laba account waana ka badan kartaa ogow 4 5 6 ayuu gaareen arkay marka transaction walba ugu yaraan ama dhacdo walba waa inay saameysaa ugu yaraan laba account warkaas meel loogu soo qordhi wanaga anfaca inta waliba aan ku guda jirno isla casharkan waxa kale oo sharcigan double entry uu qabaa oo la rabaa in la ogaado total debit must equal total credit debit iyo creditna waa inay isla egyihiin oo aysan kala badan waa meelaha kow aal raba xisaabtaada inay qaldan tahay ka daranto hadii debit iyo credit ay kala bataan xisaabtu waa qaldan tahay transaction aad sameeyay ku xisaabtan inuu laba saameyn ugu yaraan leeyahay hadii xataa aad markaas fahmi weyso waa inaad raadidaa transaction laba saameyn ka yar yeelanayo ma jiro oo sida hal saameyn yeelanayo debit iyo creditna waa inay same yihiin taas waa inaan haysaa waad maasan tahay marka ila sii soco ciwaanka kore using the basic accounting equation aan ugu qoran waa un mar walba laga maarmaayo qaacidadii accountiga ayaan horey u soo aragnay isticmaalkeedan ku guda jirnaa si kooban marka nuqdadan waxay qabtaa transaction waxa la yiraahdo inaan fahmo dhacdo transactions dhacdooyinka la sheegayo laga hadlayo are a business economic events waa dhacdooyinka dhaqaale oo ganacsigu uu sameeyo transaction hadda ma qasho recorded by waxa diiwaan geliya accountants qofka xisaabiyahan diiwaan geliya transactions kaas each transaction dhacdo walba has a dual effects on the accounting equation transaction walba oo dhaca waa inuu laba saameyn ku yeeshaa accounting equation ki aan soo aragnay qaacidada accounting oo labadii dhinac waa inuu equation waa taqaanaa waa equal to wixii gees midig ka xigay iyo dhinac bidix wixii ka xigay laba saameyn waa inuu ku yeeshaa aad baad u maasan tahay ila sii soo qaybta kale u sii gudub meeshan waxaan kugu soo koobay wax la yiraahdo transaction analysis falaqaynta transactionada waana wax dib naga anfici doona markaan computerized accounting baranayno qaabkan hadda aan idin tusayna waa manualki hore sida wax loo qoray jiray markuu transaction isku dhaco ilaa 10 ay gaarayaan kadibna waxaan sameyn doonaa reportskan diyaarinaynaa muhiimadda intaan hadda fahanto hadhowti adoo wax fiican fahansan ayaan computerka aan tagi doonaa hadii alle marka transaction 1 dhacdada koowaad waxa la yiri investment by owner intaas ku saabsantay investment maalgelin la sameeyay baa sameeyay owner qofkii meesha iska lahaa oo shirkadna lahayd ama maalgelin sameeyay transaction intaas ku saabsan yahay waa lagu sifaafaha Roy Neal ninka la yiraahdo decides wuxuu go'aansaday to open inuu furo computer programming service meel kombuyuutarada lagu programmiyo adeeg noocaas shirkad yar oo qabata ayuu Roy Neal ninka la yiraahdo inuu furo go'aansaday which we name is SoftBank magaceedana wuxuu ka dhigay xaruntaas SoftBank la yiraahdo on September taariikhdu waxay marayday
كودي سبتمبر 2010 si kooban marka fiir warkii Soomaaliya xataa uu bedelo saad ugu lafaanto waxa uu ku maalgeliyay 15,000 oo kaash waxaan marka ku sii qorano fiiray qaybta dambe saameynta oo transaction kan ku macnaha oo ku yeelanayo equation-ka aan soo baranay fiiray hal marka hore marka waxa la qoranaa marka manual-ka la diyaarinayo qaacidadii hore lagu soconaa asad wuxuu la mid yahay liabilities-ka deymaha oo lagu daray oo naris ugu lacagta lagu bilaabay haddana qaacidada waa sii fisadona waa sii dheereed oo lagu sii daray ama aan dhahay laga jaray drawing hadduu jiro oo lagu daray revenue oo laga jaray expense waa naga dhigi jiray marka hadda buugu size-kan ku xisaabtamayo oo intaas aan ku soo koobay qaacidada markii ay expense yimaadaan waa sii dheereed doonaa laakiin marka hore qaacidada oo basic-an ku bilaabayna fiiray maxaana la ka rabaa dibidi kididinaysa kala badan transaction hadda dhacay oo maalgelinta oo 15,000 oo kaashka ana inay laba akoon saameeyo horta marka hore waxaan ka fikiraynaa meeqa akoona meesha taal horta kaash waa hayna koon kaash waa hayna kaash daarto waa in asad kugu soo dhaca maxaan kaloo hayna investment haddii imaato waa inay kugu soo dhacdaa lacagtan inay capital tahay capitalna waa hayna labada akoon hadda waa haysanaa fiiray meesha hoose seen u qoraynaa kaash waa asad dhinaca asadkan geenina raynil capital aan leenahay waa naga dhigayna hadda koor cali capital faarax capital loo qoraa capital waa lacagta uu ku bilaabay transaction marka soo dhaca waxa la leeyahay waxaan haysanaa 15,000 oo kaash waa balaas kaash oo noo soo siyaad dhinaca kale fiiray xagee nooga imaatay 15,000 waa lacag lagu bilaabay dukaanka ogaa wax dhan oo meesha yaala fiir waa 15,000 waay bis 15,000 laba macno loo sameeyaa waxa la leeyahay 15,000 oo horta hadda aan hayno dhinacan ka fiiray 15,000 hadda hayno oo asadka xagee ka imaatay la leeyahay waa lacag dukaanka hadda lagu bilaabo waa deyn maahan wax kale maahan lacag qofkii iska lahay oo ownerka ay ku maalgashado waa meeshan inuu wax fiican kaaga bixina rajayna sii soo marka transaction-kaas halkaas noo mara waa sii wadayna transaction tuu dhacda labaad aan rabaa inaan ku tuso si kooban erayadan ku raxta in ay la sii faantaa rabaa purchase of equipment qalabaa la soo qaatay for cash waliba lacag lagu soo qaatay hoos fiiray software waxa uu soo qaatay qalab computer equipment loo yaqaan ana qalab computer soo qaatay waxaana ku soo qaatay ku Soomaaliyeed 7,000 oo kaash 7,000 kaash oo soo qaatay dhacdadaana marka waxa laga rabaa dibidi credit inaysan kala badan laba akoon oo ay saameynayaan in ay yeesho waa raadinay horta waxa la kaash waa haysta ku waxa la soo qaaday maxay computer equipment qalabna waa haysta equipment computer equipment oo qoran karta equipment oo ku soo gaabi karta waa qalab labadii akoonada dhan lagu sheego kuwan waa kuwa lacag gasho bis muhiim ah shayashan magacyadooda waa meesha hoose markay ma xagee noo mareeyay intaan hore waa isla fahansaneen oo li balance hore saas oo 15,000 waa maxaa la leeyahay kaash horta wuu yaraaday maadaama uu baxay minus 7,000 horta aan kaash ka bixin haddana dhinaca kale firay balaas waxay nagu soo gashay 7,000 haddana qalab inoogu imaatay dhacdada marka waxa la rabaa aad in u fiirido xataa equation-ka dhinaca kale lama aadin wax deyno hadda dhacay ma jiraan wax ka bitaalo hadda imaaday ma jiraan laakiin fiir dhinaca asadka ayaa batay haddana isla yaraaday macnaha haddana batay oo equipment-ka kaash naga baxay bedelkiisa maxaana soo galay qalabaan ugu soo galay total marka dukaankan lacagta uu haysto meeqa waayo lagu xisaabinaa waxa la leeyahay 15,000 oo haysta oo macnaha asad oo hanti oo haysta hadii lagu yiraahdo furfur maxay noqonay 8,000 kaash uu haysta 7,000 qalab ayaa u yaala oo qalabkaas inuu gadmaal rajinaan deelad transaction kana xoogaa xigmad kale inay kaaga baxdaan rajinaan si wad marka ku sii dheeraamayno ka kale nagay transaction 3 purchase of supplies on credit alaaba deyn lagu soo qaatay supplies ku waa alaab yar waa credit hadaa maqashana waa deyn software intaas ku filan English ahaan waa ku sii fasira firay software waxa uu soo qaatay 1,600 oo alaab yar supplies loo yaqaan akoonka ina meeshaas kala soo bixi karta laga rabaa alaab macna gaarida 1,600 ayuu soo qaatay xaguu ka soo qaatay from ak supply company computer paper shirkad Americana oo macna
عندها شركات samaysa computer paperiska iibisa warqadaha kombuyuutarada loo isticmaalo iibisa sida A4ka waxaas ayuuna ka soo qaatay waa shirkadii wax laga soo gato waxa uuna bixin doonaa lacagta bilaha soo aadan marba uu bixin doonaa haddaa maqasho inay deynta in halkaas ka fahantaa la rabo marka macna loo sameynaa fiiri in la diiwaan geliya wixii la warkaan dheer oo dhan lama rabo akoonta wuxuu leeyahay sharci uu leeyahay gaaba la yiraahdo sharciga akoontiga la in lagu dabaqo wixiina la helo macnihiina ay sameeyaan ayna koobayaan horta waxaan ka fikiraynaa maxaa meesha yaala akoon payable deymahaas haddaa aragto la soo qaato hal akoon lagu aruuriyo maxaa la yiraahdaa akoon payable fiiri akoon payable horta deyn waa jirtaa koow maxaa kaloo jira makaasha horta ii imaaday maxaa markay deyntan galo maxay deyntan igu galaysaa fiiray suppliesna waa kuwana waa alaab yar marka maxaa la leeyahay balaas waxaan ugu siyaado 1600 oo deynahan galnay deyntan aan galnay marka makaashan ku soo qaadana maxay noo soo faa'iiday may alaaban ku soo qaadan alaabna waa ugu soo siyaad transaction marka fiiri labada dhinacba balaas waa ku yahay marka qaar waxa arkay labada dhinacba ayadoo minus ku ah si kooban haddii xataa warkan lagu sii fasir dibidi credit la geeyo xogaa inuu ugu sii dheeraadaan ka cabsanaay hadda deyn hadday badato xagee ka bada jirtay credit ka bada jirtay dhinacaan ka bada jirtay waatana waa taala haddii asad oo badana asagana agu ka bada jiray dhinaca dibidku ka bada jiray hadda laakiin si aad dibidi credit ugu wareerin equation caadi oo xisaab caadi ah ama ku shaqeynaynaaba waana sida manualka loogu shaqeeyo dibidi credit xogaa saana ka fudud aad baad u mahadsan tahay cashirkan inaa fahantaan rajeynaa dhowr transaction noo sii dhiman u sii diyaar garow insha Allah qaybaha kale waana mahadsan tahay weligaana ka caajisin casharada la socodkooda daawashadooda muuqaalka haystaa mar walba ku celasho inaad fahantana waa rajeynaa